waxaa kaloo muuqata maanta rajeeye iftiin inaan rabno inaan ku soo celinno siday ahayd wasiirka waa u mahad celinayaa dadaalka dheer uu bixiyey dowladda qatar iyo safiirkeedana waa u mahad celinayaa dhismaha wasaaraddani iyo inaan rabno inaan ku soo celinno siday ahayd muddo sanad gudaheeda haddii ilaah yidhaahdo waa geedi socodka aan rabno in wasaarad walba iyo dhismo walba waddankan laga dudumiyey inaan ku soo celinno siday ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan u joogno sidaan dib ugu unki lahayn wasaaraddii qorshaynta qaranka ee halbowlaha u ahayd horumarka iyo dibudhiska qaranka soomaaliyeed waa waajib wadaniya waan ku faraxsannahay tallaabada dawladdu qaatay ee maanta ay dib ugu dhisayso halkan waa loo baahnaa waayo waa halka rajada aanu ka qabno horumarkeenna iyo meesha aan higsanayno inaan ku taabsannaano ilaahay ha nala qabto ilaahay gacan ha nagu siiyo waxaanu rajaynaynaa innageennana ummad ahaan soomaali ahaan inaanu ku dadaalno in aanu waxyaabaha aan basic nooha asaaska nooha inaanu dhowranno inaanu hagaajisano inaanu kor qaadnaba si ay ummaddeennu ay horumar waqti aan ku soo biiray waxay deganayd meel kaloo yar ayay deganayd oo jubba agteeda dad yaruna way ka shaqaynayeen waxaan ku soo biiray 71 January marka wasaaraddu way yarayd markaa meel yar bay deganayd oo dad yaruna way ka shaqaynayeen wasaaraddan ayaa la dhisay 19 waxaa la dhisay la dhamaystiray oo ku soo guurnay 73 ama 73 ayaanu halka soo degnay marka waa balaartay hawshii dad badan oo yahanaa iyo kuwa dibadda ka yimid iyo kuwa gudaha wax ku soo bartay ayaa ku soo biiray wasaaradda waxaa la dhagax dhigay oo dhagax dhigeeda dib u dayactirka iyo dib u dhiska ku saabsan waxaa la dhagax dhigay bishii 9aad 2018 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka dhagax dhigay ujeedkuna wuxuu ahaa in ay suuro gasho in meeshaan wasaaraddii xaruntan wasaaradda iska lahayd ay timaado ay ku shaqayso waajibkeeda gudato marka waa shaqo soo socotay sanad iyo wax ka badan sanad iyo bar iyo haddaysan ka badnayn runtii haddana meel fiican soo gaartay gabagabana ku dhow suuro gelin doontana in wasaaraddu ay hawlihii loo idmaday oo ay u lahayd waajibaad inay ku gudato waagii horena sibay ahayd burburkiina sibay ahayd haddeertaana si weeye marka farqi weyn baa runtii hadda saaka ka muuqda sida ay tahay maalinkii la dhagax dhigahayay meel aan deegaan ku habboonayn oo duur ah oo in bini aadan ku nool yahay aadan u malaynin bay ahayd maantaytana quruxda iyo muuqaalka samida ka muuqata waa mid aad iyo aad loogu riyaaqayo waxaan ugu bashaaran wadda Soomaaliyeed in wasaaradda qorsheynta maanta muddo dheer ka bacdi muddo 30 sano ku dhow aan lagu halgelin oo laga shaqeyn maanta inay dhismihii hore shaqo ka bilaabi doonto haddii alla idmo oo wadda shaqaalaha wasaaradda qorsheynta waxyiisa kala duwan ay sharaf iyo farxad u tahay maanta inay wasaaradooda hore soo guuraan iyagoo ku shaqo bilaabi doona halkaas dhammaan wadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaya shaqada wanaagsan ee halkan ka socota inay si fiican ku soo gabagabowday sidoo kale waxaan rabaa inaan la qaybsado dhammaan shaqaalaha wasaaradda sidaan ugu faraxsannahay iyo farxadda iyo wanaag ka socda halkan sida shaqadu u soo dhamaatay quruxda wasaaradda qaybaheeda kala duwan dhismaha maanta inay joogto meel aan ku wada faani karno dhammaanteen waxaan rajaynayaa guul insha Allah sanadaha soo socda iyo mustaqbalka dheerba inaad haysataan maanta hoygiinii hore la idin dhisay waqti aad u fog ka hor in maanta aad ku soo noqoteen wasaaradda aad joogtaan oo aad ku shaqaynaysaan haddii alla idmo waxaan rabaa inaan mahadnaqo dhammaan wasiiradii iga horreeyay qorsheynta ka soo shaqeeyay madax ka soo noqday wasaaraddan kuwa wasaaradda ku shaqeeya kuwa dhismo kale ku soo shaqeeyaba maanta inay tahay maalin aad u qiimo badan dhinac ummadda Soomaaliyeed oo dhana sanad guuri 6aad dhinac kalena bahda qorsheynta oo ah inay maanta xaruntoodii ay dib ula wareegayaan oo dib uga howlgalayaan uguna shaqeynayaan shaqaalahana waxaan rabaa inaan ku booriyo iyo madaxda wasaaradda inay adkeeyaan oo xafidaan ammaanadan oo ay u ilaaliyaan sidii guryahooda u ilaalinayeen